fanaanka caanka ah ee Axmed Saki Maxamuud oo si weyn fankiisa looga xiiseeyo dhulka Soomaalidu degto isla markaasina kamid ah fanaaniinta qurba joogta ah ee ku nool wadanka Norway ayaa maanta ka soo degay gegada diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay dadweyne tiro badan oo kamid ah taageerayaashiisa fanaanka Axmed Saki Maxamuud oo soo dhaweyntiisa kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka dareen celiyay booqashada uu ku yimi magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay in maalmaha soo socda uu bandhig faneedyo ku qaban doono magaalooyinka Somaliland الله يبين ريونا يا مصورن والله ده هرجيس واحد يقدم بيسي أنا غير هرجيسانها واحد يقدم بيسي 8 سنة كهر أصحابتي دي قارب بدون بعاويلة شوجا مركا وحلاي هاي سومالي لان أدبنا السلام يا هرجيسنا والله وان دريم ريو وحن ماضي أنا ريونيو لكن الحمد لله ولي ما تيجي الربان بيلهاي قسمي أدي أدبنا السلام يا دمنا صحابتي قالي جاي كسوق بقشي markaad rabada ka soo degtay ma ooyday maxaa dareentay jawigaaga seed noqotay والله قف مركاد أويدو ومال دو لكن مركي أوهيني كايمن ويدو وحالات هذا قويان مركا والله شعب كان ويلل يقبل إلا جودها إلا في أبيده أدي أدبنا السلام يا شعب كسومال لان جودهان قارهار ريارجيس أدي أدبنا السلام يا إن شاء الله برنامجنا إن شاء الله ونسكوبي من دون هدي لهير هذا أو إن هريرها يجتاجن aad iyo aad baan u salaamaya waxaan salaamaya ciidamada qaranka Soomaaliland waxaan salaamaya madaxweynaha waxaan salaamaya golayaasha qaranka waxaan salaamaya dhammaan reer Soomaaliland oo dhan in ma idiidee may Hargeyso kaliya laga xuso Soomaaliland oo kaliya dadweynaha oo kala laga xusaayo 10 meelood oo kala laga doonayo moogti marka meelaha kale aan ku yar mashquulay walaal inshallah wada joognaa barnaamijyada dambena waan ilaa iida iyo wixii ka dambeeya ee socodsuban Soomaaliland u soo wado qaaraan Hargeysa oo wado qaaraan Burco Boorama dhamaantood Soomaaliland oo dhan magaalo ugu wada inshallah na haday kamisuun yihiin Xasan Maalidar telefishinka RTN magaalada Hargeysa